shirkan oo ah kii afraad oo ay isugu yimaadaan wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradaha caafimaadka dowlad goboleedyada ayaa diiradda lagu saarayaa horumarinta iyo ahmiyadsiinta adeegyada caafimaadka dalka. Wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa furay shirkan oo markii ugu horeysay uu martigelinayo gobolka Banaadir ayna ka qayb galayaan wasiirada caafimaadka dowlad goboleedyada. agaasimaha caafimaadka gobolka Banaadir Maxamed Maxamuud Cadow ayaa sheegay in ahmiyad gaar ah uu leeyahay shirkan. maamulka gobolka Banaadir waxay u tahay farxad waxayna u tahay wax muddo lagu soo riyoonayay maanta oo kale in la soo gaaro. waxa la soo maray culeysyo badan, waxa la soo maray dadaalo badan, waxa la soo maray doodo badan oo sal ay u ahayd suurtagalnimada shirarka noocan oo kale in gobolka Banaadir oo liid gareey. waxaan rabaa marka qof walba oo qayb ka soo qaadatay in arinta maanta aan u fadhino inay dhacdo inaan u mahad celiyo. koow ay ka tahay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradaha caafimaadka ee maamul goboleedyada oo saaxiibada ah oo garab lagu siiyay arintan inaan maanta soo gaarno. waxayna tusaysaa wada shaqeyn, waxayna tusaysaa iska warqab, waxayna tusaysaa iskaashi. taas ayaanu ku badbaadi karnaa hooyada iyo ilmaha u baahan in la gaarsiiyo adeegyada caafimaadka ee asaasiga ah. wasiirada caafimaadka dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland Maxamed Ogle iyo Jaamac Faarax Xasan ayaa tilmaamay in mid dhal uu noqdo shirkan uu ka duwanaado shirarkii hore. muhiimadda caafimaadka waxaan malaynaa waa markii afraad oo isku wada limaano oo ka wada hadalno caafimaadka maxaa laga qabanaa xageerna inaan ka qabano xageerna inaan gaar. haddana shir kasta markaan isku imaano isku yaawan meeshan shalay ka bilawnaan joognaa. dhibku muxuu yahay? maxaan haysto? maxaan maalin kasta shirkan 50,000, 100,000, 30,000, 40,000 iyo safarada aragtay oo meelska inta ka soo marno. shirkii meeshii aan ku shirnay shirkii Kismaayo waxba iskama bedelin wali meeshaan isugu nimid. shirkii Garowe waxba iskama bedelin meeshaan isugu nimid. hopefully shirka Baydhabo waxba isma bedeli doonaan. why? what is the problem? dhibka jiro muxuu yahay? dhibka jiro wuxuu yahay inta meeshaan fadhido oo aanan aaminsanayn waxaan ku shirayna iyo waxaan ku ballanayna sax ahayn. lima taquluuna ma la tafcaluun. markastana waxaan ka tashan jirnay sidii aan u horumarin lahayn caafimaadka. tanna dabcan tii un bay la mid tahay. waxaan ka wada hadli doonaa haddii laha idmo howlaha ina dhex yaalla iyo mashaariicda inaga dhexaysa sidii loo maamuli lahaa iyada oo dabcan la waafajinayo nidaamka iyo qaanuunka waddanka u yaal ee federal systemka. wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan oo shirka furay ayaa dul istaagay howlaha muhiimka u ah caafimaadka. waxaan uu balan qaaday inuu xoojinayo wada shaqeynta ka dhaxaysa wasaaradda caafimaadka federaalka iyo wasaaradaha caafimaadka dowlad goboleedyada. muhiimadda shirka oo ah sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta wasaaradda federaalka iyo maamul goboleedyada oo salka ku haya wada tashi, go'aan wadareed, iskaashi, aqoon isweydaarsi iyo isla xisaabtan dhinac walba ah. taas oo yoolka ugu dambeeya yahay horumarinta caafimaadka ummadda Soomaaliyeed. innaga waxaan naga go'aanka wasaaradda caafimaadka federaalka inaan si dhow idinkala shaqeyno sidii aan meesha hadda la joogo ugu sii dhaqaaqi lahayn caafimaadka dalkana guud ahaan wax ugu bedeli lahayn. sanadkii 2020 ayuu shirkan soo bilowday waxaana lagu qabtay magaalooyinka Muqdisho, Garowe iyo Kismaayo. Ayuu Cabdiraxiin warbaahinta qaranka Muqdisho.